Soo dhawow qof walba waxaan u sheegi doonaa doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa 5 November. Halkaas oo madaxweynaha ku-xigeenka hadda Kamala Harris oo ah musharax dimuqraadiga ah ee madaxweynaha 47 ee midooban gobolada Mareykanka uu ku wajahan yahay madaxweynaha 45 ee Mareykanka Donald J. Trump oo ah musharax jamhuurigu uu sharaxan yahay madaxweynaha 47 midooban gobolada Mareykanka. Doorashooyinka Mareykanka waxay lagu go'aamiyaa codka elektaroolka oo gobol walba uu ku saleeyo dadkooda. California oo ah gobolada ugu weyn uguna dadka badan ee Mareykanka ayaa helaa 55 codka elektaroolka, halka gobolada Wyoming uu helaa 3 codka elektaroolka. Haddii hal musharax uu helo in ka badan 50 codka, musharax wuxuu helaa dhammaan codka elektaroolkaas ee gobolkaas. Si kastaba ay ahaatee, Maine iyo Nebraska waxay ku kala qaybsadeen codka kooda elektaroolka ee ku saleysan dhaqamada Koongareeska iyo 2 cod dadka dadweynaha. Haddii musharax helo wax ka badan 270 codka elektaroolka, wuxuu ku guuleystay madaxtinimada wuxuu noqdaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Haddii aan eegno khariidadda, waxay aragnaa in Kamala Harris uu haysto kaliya 194 codka elektaroolka, halka Donald Trump uu helaa 344 codka elektaroolka. In ka badan oo ku filan inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Sidoo kale, Kamala Harris sidoo kale ma heli karaa 270 codka elektaroolka? Haa, laakiin waa wado aad u adag. Iyada waa in uu guuleysato Pennsylvania. Iyada waa in uu sii guuleysato New Jersey. Iyada waa in uu sii guuleysato Virginia. Iyada waa in uu sii guuleysato New Hampshire. Iyada waa in uu sii guuleysato Michigan. Harris helo 259 elektaroolka codka, kaasoo horeeda 279 waayo ee Donald Trump. Weli Trump waa madaxweynaha la doortay. Sidaas iyada waa in uu guuleysato 7 codka elektaroolka ee Wisconsin, taas oo iyada helaysa 269 ku jiro 269. Si ay u guuleysato, waxay u baahan tahay hal cod oo ka yimaada Nebraska. Iyo iyada waa noqdaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. 270 guul idhidhi ah. Waxaan u sheegno in Harris kaliya leedahay hoggaan idhidhi ah oo lagu qaato guusha. Trump ayaa leh so many. Laakiin hadda Trump isaga oo leh 344 codka elektaroolka, inaad noqotid 47 madaxweynaha ee midooban gobolada Mareykanka. Waa mahadsantiin.